boqor nuuraddiin oo ka mid ah boqorrada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ayaa guddoonsiiyey ardaydii ugu sarreysay dugsiga sare Imaamu Shaafici magaalada Ceerigaabo. Ardaydaasoo magaceeda la yidhaahdo Aamine Maxamuud Warsame Caraala, inkastoo haatan ay ka maqan tahay magaalada Ceerigaabo ay dhigato jaamacadda iyo safdhigka magaalada Boosaaso. Waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey waalidka Aamine Maxamuud Warsame Caraala, waxaana halkaasi ugu horreynba ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Imaamu Shaafici Siciid Axmed Dhuux, waxaana hadalladii maanta halkan ugu talagalnay ardaydii sanadkii dhoweyd 2014ka iyo 15kii ka baxay sanad dugsiyeedka dugsigeyna gabadhii ugu sarreysay oo la odhan jiray Aamine Maxamuud Warsame Caraale aynu maanta halkan ku horsiino abaalmarintii loogu talagalay aynu ugu ballan qaadnay. boqor nuuraddiin oo isna halkaas ardayda kala hadlay ayaa uga soo jeediyey hadallo dardaaran iyo duco isugu jira, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بقى ما حد مركو هره isaga ayaa qadarta haya waqtigana isaga haya wax kastaana dhacayana isaga gacantiisa marka labaad waxaan u ducaynayaa ilaahay u naxariisto Professor Xasan Xuseen Ibrahim Faarax iyo Xasan Xuseen Ibrahim inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii ka waraabiyo. marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa ardayda sharafta iyo karaamada leh inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo dad fi aakhiraba karaamo ku yeesha. marka saddexaad waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa ardayda foontuuga oo laygu yidhi waa arday aada u dadaal badan, iyagana waxaan leeyahay dadaalka inaad sii muujisaan mooyaane ha isqaadanina, waayo bini aadanka waa dabeecaddiisa haddii la ammaano khayrada ka banjara, cidna ha maqlina. haddii lagu ammaano waxaad u qaadataa in lagu caayo. ilaahay baa mahadle. waxaan kaloo aada iyo aada ugu ducaynaya inankii qur-aanka akhriya inuu ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo. waxaan kaloo isna aada ugu mahad celinaya inankii dhaqanka sheekaynayay. waxaan leeyahay isna dee labadeenna miyiga degayna qofka waa loo bilaabaa qudhaydu maasana halkan ku sidaa laydhaha dan iyo xarago. dan iyo xarago waxay ka sheekaynaysaa dhaqankay ka sheekaynaysaa, waxay ka sheekaynaysaa gabadhu inay waalidkeeda ixtiraamto. wuxuu ka sheekaynayaa wiilka dadaala inuu waalidkii ixtiraamo. gabadha waxaan kula dardaarmayaa inaanay doqon iga noqon, wiilkana waxaan kula dardaarmayaa inaanu dib iga noqon. nin saddexaad baa jiro magaalada aada ugu karti badan oo isna gelinka horena shaqaysta gelinka dambena waxbarta. allahuma salli calaa maxamed. inankaasi waa inan aada iyo aada u dadaala. wuxuu leeyahay guryuu ka dhistay, gelinka hore u shaqaystaa, waa biyuhu magaalada siiyaa. hadduu maalin ka seexdo magaaladu way qabaysaa, casarka qur-aanku dhigtaa, habeenkiina waxbuu dhigtaa. markaa danta iyo xaragada waa laysku wada. maasadani waxay leedahay dadaal ardayga muujee duruustiisa oo idil dacal dacal u qaybow ducan kugu daldalayaa. dareenkayga gaarana deeqduna ku ladhan tahay oo kula dul jooga. adiguna dadaalay hayga noqonin doqontii dabkii ay shidaysay daldaloolka yeeshee daamankuna u dheeraa dulman hooyadeedii dihatee ku daashay dabshidada ku tidhi hoo diiddayoo ku tuurto dibnihiina buurto dudmadii ku maqan weli. xaggay tegaysaa? magafay tegay. dab kaloo mid kala shiday daawihiisu saarnaa dul tagtoo ku tidhi hoo xubnahaygan dahabkaa dacal dacal u shiiloo duxda iyo subagana dalqadaada mariyo dooqaygii baa tahay dunidana ku nolol. adiguna dadaalow hayga noqonin dibigii duxid iyo dureemada dacalkiisa loo dhigay dibiroo ku naaxoo geesihiisa kala degay ku dalooliyoo dilay kii dayacaba u diido dubjiroo dugaaguna waaxwaax ku biirtee. dareenkaygan maansada dulucdeedu wuxuu yahay danta iyo xaragaduna waa ruuxiyo dadaalkii.
وأنا كيف نسوق لنا هذا هو إنك دالي قبل هره دنت كودو دير كدنبنا دريسكيو شال كدعال كطوري كدنبنا دريسكيو شال كدعال كطورو دعان كقول الدليا أكيد دالي وليا ديقسينا لهاتو دكتور كان ضرير شو ما تنا وقاتو دري لهي وكالمه ما صدق هالكاسي كسر دبقودي إلهي واحد يكبريه لبدا بعض من نقوليسا واحد نصيب بدن ما أنت مين هو يدي ناشي واحد نصيب بدن ما أنت من أبيه هو يدي نودي واحد نصيب بدن ما أنت هو يلا صادو كشاف عروتها دكوجريس أبها صادو كشاف عروتها دكوجري ما واحد شرف دينها إذا ما شرف طالع إن مين أيضا قرن ينقاف في ذيك ما قف بدك يسوح فيها بدك يسوح فيها أبها يا أوجا يكيكو هيدا وحرك يعانو يبي هذا هو إذا قلت شيء دير ولبا أنا أظن في عنا على إنجليزي وكلام أظن السادنا واحد ريتني جاء من البادية فحرم قرن السادنا أفر حبات برتاي هذينا قف كون هي احترامي لا بديكوا احترامي قف كستا وحو بيرتو كوستا beertaada haddaad ku jidatid hadhuudh sarreen ma kaaga soo baxaya malaabu ka soo baxaya haddii aad wanaag beeratid wanaag bay ummaddu ku haysa hore maxaan idinku dhaartay wasiiraa soo dhaweeye wallaahi waxaan ka jecelahay ardayga xafladiisa jooga waxaan idinka baahanahay ciddii barina bedeli lahay waa idinka xiisadaa idin sugayaa baan uga xunahay inuu waqtigeeda kaga ciyaaro waqtiguna qofku waa inuu 10 minute uga faa'iidaysto garantiin yaa haysta in 120 sano noolaanaya yaa garantiin haysta in 30 sano noolaanaya yaa garantiin haysta 70 sano noolaanaya wanaaga qofka sameeyo bay ilaahay cimrigiisa dheereeya isaga ilaahay ummadan ilaashanay bay fahmayaan waxaan aad ugu xumahay marka la yiraahdo arday baa mudaharaadaya oo waliba wasaaradiisa jijibinaya oo waliba iskuulkiisa jijibinaya xaggaad bari u soo noqon maalin xishoonay bisada maanta inta wax la siiyo inta reerka jeenigii dhamaa ka xado bay inta indhaha isku soo qabatay taa waliba miyaa bisada inta indhaha waliba isku soo qabatay waxaad leedahay macalin saamax karaamku leeyahay macalin waxaan intaa ku dambeeyay ma jecelina waqtigu dhareeyo deeqdeeda gaaran ducaaduna ku laran weydiladu joogaan inta nool insha Allah waxaynu guddoonsiinaynaa waalidkaynu hadiyadii inanta guddoonsiinaynaa daabkaasi waa 6 garaan waxa ka dhiman dhowr kiigo aanan garanay intay tahay laakiin waxa daabkii aan ilaahay dartii ku ballan daabkii baan boqor nuuridiin ka guddoonay waa 6 garaan wax yar baa ka dhiman waxaa iska leh inanta la yidhaahdo Aamina Maxamuud Warsame oo hablaha gobolkan ugu sareysay sanadka dugsiga sare ee Shaafici gobolka dhan bay ugu sareysay gabdhaha marka waalidkeed bay guddoonsiinayna Maxamuud Warsame Caraale Maxamuud ay gurdoon inantii Aamina waa ka dahabkaas aad gaarsiinaysaa waxay dhigataa inantii jaamacadda bariga Afrika Boosaaso qaybta dhakhtarnimada waan ugu ducaynaynaa in ilaahay cilmiga ay baranayso ay halkaa ka sii wado وانا انا ودو عيسان دكنا ممكن احنا نديبه والدك واسنا كلمه انه ورنا دبلتنا waxa aan ku soo gabagabayn doonaa gudoomiyaha qaybta barafada Ali Ahmed Abdi واسنا inala joogo waxaan hadda ugu dhiibayaa mikrofoonka Maxamuud Warsame بسم الله الرحمن الرحيم وقارو نوردين بدوينها أرضنا شرفتنا معلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبعد ماموس كبير في ليبي حسك أنت سلسو وزي هل شو دين بكرية وفق وحينا قالوا ورضع أرضنا وحبرنا يفسع وفقوا لما إنه همت قالوا
وآن وقفكوا أهمك إيا شرفت قفكوا هدول دلالو إنه اللي همت قليل آيو وجوه جيدا استوستوس إيا وجوه كالبتونا كماله marka isagana waxaan leeyahay uga mahadcelinayaa sharafta badan uu soo sameeyey hamadgelinta oo ardayda hamadgeliyey ilaahay uu jaas ka siiyo waa nin mutacalina macallimiin ardaygu soo maray macallinkuu soo maray waxbarashu soo maray waxbarashada ciska iyo sharafta ay leedahay ayuu ina tusayaan qofku hadduu waxbarto heerka uu gaadho iyo sharafta qof walba inuu wax siiyo buu tusaya qofka dayaca waxbarashadiisa iyo horumarkiisana inaanu meel gaarin ayuu tusaya marka dugsiga la yidhaha dugsiga shaafici waa dugsi wanaagsan marka dugsiga la yidhaha dugsiga shaafici wax badan baa ka soo baxay waa dugsiga ugu sharafta badan gobolka waa sheegaya aad iyo aad baana loo macrufad loogu leeyahay waxbarashadiisa iyo tababarkiisa waxaan idin sheegayaa boqorka muwaadiniin ujeeddada iyo hamada uu kaleeyahay qofku inuu xadiis baa wuxuu ahaa haddii qofku habeenkii uu guurayo wuxuu aroortii wuxuu degaa meesha uu doonayo ama meel wanaagsan buu degaa haddiise barqa uu hurdada ka kaco meel lama gaadho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ana kaba dambaysta halkaasi ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gaarka loo leeyahay mudane cali dhigane waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxa aan aad ugu mahad celinayaa boqor nuuraddiin gabadhaas aamino maxamed warsame caraale rikoorka fiican ay keentay uu motivationka u sameeyey dahabka kan 6 garaam uu guddoonsiiyey wax weyn ma aha laakiin wuxuu tusayaa qofka in la garanayo waddanka dadka liiba haya waayo waxa weeye dhakhtarkeennii beritay gabadhaasi noqonaysaa hal gabadh baa soo saartay ragga dumarku aad iyo aad sanadada dib uga xil jireen hal gabadh baa soo saartay laysankan bini'aadmiga calooshiisa lagu qalo iyadoo aan dib loo qaadin gabadh basiirada bay ahayd waxaan filaynaa ilaah bay kusoo kordhin doonto dalka midda labaadna ashaarada tan ay guddoonsiiyeen boqor nuuraddiin ardayda dugsiga shaafici galaaska labaad ee fogtusi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ardadaas qiimaha weyn iyo munaasabadda iyo qadrinta ay siiyeen boqorka waan guddoonsiinayaa ashaaradaasi ilaahay agtiisana qiimay ka leedahay waayo ardaydii ayaa u hilaysay waxaana weeye waxaweye ardadiisii ayuu qalbiga wanaagsan ugu hayo tusay ilaahay agtiisa qiimuu ku leeyahay waxaweeye sida tan aan anigu ugu guddoonsiinayno ilaahay agtiisana inuu meel sare kaga qoraa dhacaysaa lagu ducaynaynaa insha boqor laga guddoon insha allah aad iyo aad baanu kugu hambaliyaynaynaa waxbarasho ahaanna qiimo weyn baanu ku haynaa ta kale maxamed warsame caraale dahabka iyaga ee gabadhaa la guddoonsiiyey maanta markay dhigteeda ku dhacdo iskuulkiibaa xafladda caynkaas lagaa qabtay la guddoonsiiyey kor baa halkeedu sii kacaya kor wax yar oo dadku wax yar u malaynayo ayaa wax weyn sameeya aad iyo aad baanu kugu gaafriyaynaa gabadhaas aad dhashay ilaahay khayr iyo kaskaas iyo ibo badan ilaahay cimrigeeda ha ballaariyo ilaahay meel sare ha ku qoro magaceeda waaye saas inoogu xidhan tahay xisadihiina gala cabdifataax maxamed yuusuf telefishinka caalamiga ee ficil channel magaalada ceeri gaabo